الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه كاني ما أنت هنا والنبضة ودلك يروح رجع أيام هذه وحن هلك كسلام يا ضمان ومدة في الصومال يدمين يشوفان بجزئية دبدة وحنو ما هلك قلنا ضمان شعب الصومالي ده شعير كله يدرين كيو فوتشيكن وحنو ما هلك قلنا قبلنا ودرين كيو هري كسر جوابي وحي كسر يرى قبلنا حمد شوكته وحنو ما هلك قلنا golayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka oo iyaguna markaba dareenka dadkooda la socday oo ka jawaabay weerarka ay nagu soo qaaday Muqdisho salaanta kadib wafdigaan hogaaminayay waxaanu socdaal rasmi ku soo maray dalka la yiraahdo Guinea Conakry ama French Equatorial waxaanu sii maray dalka Ethiopia waxaanu kala kulnay labada meeloodba wax wanaagsan iyo yuhun fiican iyo qadarin dalka Ethiopia waxaan joognay 24 saacadood 24 saacadood waxaan ku aragnay labadii wasiir ugu waaweynaa wasiirka arrimaha dibadda iyo kii finance-ka waxa kaloo telefoonka lagu soo hadlay isagoo oo kormeer ku jira taliyaha ciidamada Ethiopia oo dhan ee cusub taasina waxay muujinaysaa qadarinta iyo milgaha Soomaaliland oo hayo waxaan la kulanay oo aan ku talagalay oo sabab ku kulanay wasiirka khaarijiga ee Chad oo aan waqti ku qaadanay inaan ka wada hadalno qadiyada Soomaaliland wax badan oo iftiiminay waxaan uga gudbinay dalka Guinea Conakry oo dalalka Afrika ugu da'da weyna oo madax ka yahay nin oday ah 80 dheeraad ah konton sano siyaasadda ku soo jiray professor sharciga ah madaxweynaha magaciisa la yiraahdo Alpha Conde dhikaasi waa nin ma aaminsan mabaadi'da hanti wadaagga ah socialismka waxaa ka mid ah raggii u soo halgamay dalkiisa si ay xornimada uga qaataan Faransiiska dhowr iyo 20 dal oo uu guulaysto Faransiiska ayaa la weydiiyey may Faransiiska ku sii jireysaan mise waa ka xoroobaysaa kaligood Guinea Conakry oo qura ayaa tuu xoroobayna inta kale wiibay wada yiraahdeen iyo waan la sii joognaa isticmaalka steedada dalkii intii ka dambeysay mid waliba xornimada qaadatay waa Ahmed Sakaturi dalkii uu ka talin jiray waayo arag siyaasadeed oo weyn bay leeyihiin dadka iyo odaygoodba soo cabbo loo qaabilay oo idinba ogeydeen dabeetana weerarkan xamar baa yimid culays badan bay meelo badan ka mareen oo Talyaanigu ugu horeeyo oo ahaa hormoodka cadaadka u wadaana Talyaanigu ahaa ee u adeegay qolada Muqdisho odaygaas kuma dabcin shalay markuu tagay shirka Afrika laba gaban oo wuxuu Soomaaliland xaq badan arrinteeda dhageysto waana arrin inaga inoo taala dawladda Afrika walaalayaal weedha xamar ka soo yeedhay laba qodob ay daaran tahay waa laba godobood godob waxa weeye iyaga oo iyaguba magan waa ciidan shisheeye oo ilaaliyo ayaa waxay maageen dawlad ilaa iyo 3 xor ahayd oo sanadkii dhaqaaleedu 100% kordho oo dadkeedu dhow 10 milyan yahay oo horumarka iyo xooluhu weyn sameynaysa ayay maageen ku yiraahdeen sidee gurigaaga Soomaaliland ugu casuuntaa taasi waa godob ay ka galeen Guinea Conakry iyagaana iska celiyay iyaguna intii iyo ka badan baa yiraahdeen dagaalkana iyaga iska celin kuwaas godobta labaad waa Soomaaliland waxay leeyihiin markay leeyihiin maxay u casuuntay Soomaaliland ma geydo maamuuska inta leeg in lagu soo dhaweeyo milgaha ma aha maxaa maamuuska u siisay waxaan la yaabanahay ragga xukuumadda ka tirsan ee saa ku tashaday marka hore goobta inta leeg waxa ku kalifaya hebel uma qalmo maamuuska iyo qaranka inta leeg uma qalmo maamuuska waa goobta inta leeg waxa u bareereen waa la isweydiinaya waa laba waa rag soo wada joogay 30 sano u dambeeyay wixii ka dhacay dalka iyo Soomaaliland wixii loo geystay dad xooggaal u aan way yihiin dhamaantood garan maayo iyagoo taa hore qabay waxay tan ugu dareen waa ta saddexaad Soomaaliland taariikhdeeda way yaqaanaan oo meel walba ay ku qoran tahay oo way ka warayaan markii la oran jiray Soomaaliyadii hore ee barigaanu ka mid ka ahayd
inta taariikh lagu faana miisaankeeda Somaliland baa lahayd waa kow ma jirin dalka oo Afrikaana oo ku yiri isticmaalkii u yimid saanta caddaa badan wax kula seexan anigu kula seexan mayno ma jirin dal Afrikaan oo yiri dadkaaga ku dhalin gabadhaadu ilmaha carooshkiisa ku dhigay dalka iyaga ee markay fooshahay naga dal kale oo yiri ma jiro markaanu doono xorriyadda waad helaysaa anaga nama goysanaysa heshiis baynu ku nahay inaad la joogto waa saddex qodob oo Somaliland gaara markii isticmaalku qarnigiisa iyo tobnaad dabeeqadii Afrika soo galayay lama wadaagto dee qolada koonfureed lama wadaagto ta kale ee ugu faan weyn adduunka oo dhan ka waraya waa halgankii daraawiishta Somaliland buu ahaa oo ahayd oo taleex waa Somaliland oo ciidankii dagaalamay Somaliland uu ahaa waa kii Afrika ugu horeeyay ee diyaarado loo soo kacaysto waa ta saddexaad markii Soomaali gobonimada hanoosay dad iyaga oo siyaasiyiin iyo Soomaaliyiintoodii madaxdhaqameedyadooda oo Soomaali oo dhan ka xeeyay oo dawladda Ingiriiska boqortooyada hor fariistay oo wax ka socday inaga jirna gudidii suldaanada iyo odayaasha salaadiinta oo kamid ah Sultan Cabdullaahi Sultan Cabdiraxmaan iyo Sultan Biixi Fool oo maanta kamid ah kala shanaad ee Somaliland bay ahaayeen ee koonfur ma lahayn markay Soomaali isqoonsatay ee qarannimadii lagu heshiiyay la isku diiday la isku mandhaafay wixii ka dhacayna dee hadiyada gumaysiin cayaarada gumaysiin la farhiyay dhiibaan ku dhisnay tan oo kaga qaad oo rag maanta loo soo hajabo ma nu ahayn waxaan garan waayay halka ay wax ka eegeen nimankaas qodobka ay ku hidiseen Somaliland ma geeyeen milgahaas maxaa loo maamusay annaga oo taariikhda ay saaw garanaya oo tii u dambeysayna wixii ka dhacay ay ogaayeen siday erayga u heleen waa tiri kaftan bay ka tahay run bay ku noqon iyo kula qaraaraan jiido Somaliland taa looma quuro waa ka dagaalamaynaa arrin baanu kaga dagaalamaynaa af baanu kaga dagaalamaynaa qalin baanu kaga dagaalamaynaa haddii loo baahdana cududaanu kaga dagaalamaynaa oo nu hubno inaan kaga kaalno maanta Somaliland oo baqi maayo Soomaali soo hawaysanaysa shanta midnimo jira Somaliland sabab maxaa loogu baqayaa Somaliland waxay ahayd Somaliland tii magaalooyinkeeda laga burburiyay 300 oo kun oo guri oo 200 oo kun hargeysa yihiin ayaa madaafiic iyo diyaarado lagu garaacay oo la dhameeyay oo maydkii la fiir ku dhex jira loogu soo noqday markaasay dib u dhisatay iyadoo cidina caawin bay dib u dhisatay dadkii ay cadaawada dhexdigeen ee Somaliland ee qolqolada dawladdii dhagarqabihii afweyna ay samaysayna iyadoo cid u soo gurman bay ka heshiiyeen oo qolada meesha lagu tagtay oo ka midoobeen qaran iyo xoog ku dhisteen aan maanta cid hawaysan karin dhalinyaro hadday awooyaashin badda wax ku saxeexeen hadday awooyaashin Ingiriis soo turkay walaad diyaarado miciisay ka dhisay hadday awooyaashin tiila islaayay ka soo dhiciyeen la idinka baqmay maanta idinka ragga sugaya waa dhalinyaro aabayaashood iyo awooyaashood halkaas oo galeen waa ragaan Soomaaliyeed mooy cid kala aqoon iyo halno waa rag naftooda u xuraya waan ku imaan qabayna la hawaysan labiya laba tan jaamac baan leeyahay ragga ka soo baxay qalliya aqoon bay ku dagaalamayaan hablaha ka soo baxana ku dagaalamayaan sidaad ii tidhaahdaa ereyga ninka koonfur joogo maanta waxaan la yaabanahay isagoo yidhi rag weli ma haya cidtii qadaynaya laba mooyaane taasaa la yaab leh garowa ma odhan Kismaayo ma odhan Baydhabo ma odhan Beledweyne ma odhan Muqdisho ma odhan soo ma odhan karo farmaajo kuma ka aragtay wada isku raacsay soo way ka karto ma wax la isu quuraa ma wax lagu midoobaa midnimada la deedeeya ma taasay ku imanaysaa way muslimay dhiigana isku daatay xijra isku buuray wixii gaaba dhacay waxa ka horeysa marka la midoobayo horta wax la nabadan qaadan oo xabada joojino waxa ku xiga labada istira midba gaarkiisu soo shiraa oo nabadu soo qaataa qorigu dhigaa waxa ku xigta labada siimaado waxa la ahaa heshiino maxaynu ku heshiinaa hadday midoobayaan iyo hadday kala tagayaan iyo hadday muddo kala bursanayaan waxba isweydiiyaan ma maantay tii wixii dhaceen ereyga ay yiraahdeen nin walba xaquureed dugsiga dhaqayadeed maar ma qaadan karno haddaynu Somaliland taama halkaasaan taa kaga haray dawladdii aan u tagnay si weyn bay noo soo dhaweysay waxaana guudoonsantay inay qadiyadeena keento oo AU-ga madaxweyne Alfaro waa ku bilaabay
hiila waa ku haystaa afrikada galbeed arrintaa waxay doonaysaa inay ku ninka arrintaa galay diinta islaamku baanu kumisay iyo diinkaa madow isku af ma nihin isku dhaqan ma nihin faransiis bay ku hadlaan ingiriis baynu ku hadalnaa isma gaadhno isma dhex galno kaynu dhig iyo dhaqan iyo tol iyo seediyo xidahayna waxaasuu inoo buuray bal ka warrama labada cadli bal ka warrama labada cadli waxaan kusoo gabagabaynayaa somaliland guul iyo horumar baanu rajaynayaa loo baqan maayo fadhiga u kici mayno damerciyaynu laba doono codaysu cududayna u muqan maayo waa ka intaan noolnahay talayaarina waa kaga adagnahay berrito weyngaa dhexisaan safro kama baxaynaa caalamka ah kuwa badan baa xigi aduu ciidaqaadka u buuci dadweynusi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu